ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo xilku ka sii dhamaanayo ayaa sheegay in mustaqbalka Soomaaliya uu ku jiro gacanta Soomaalida loona baahan yahay inay si wada jira madaxda Soomaalida uga shaqeeyaan sidii wadanka faa'iidadiisa dhaqaale iyo kheyraadkiisa ay u soo bixi lahayeen. Waraysi khaas oo xalay siiyay idaacaddan VOA ayuu ku sheegay inaysan ahayn wax sahla in la wada shaqeeyo iyadoo al-shabaab iyo kooxaha kale xag jirka ay isku dayayaan inay amniga majaxaabiyaan, balse wuxuu ku baaqay madaxda Soomaalida inay isku tanaasulaan. Warbixintan waxay noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed. wakiilkii arrimaha Soomaaliya ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee shaqada ka sii tagayo Michael Keating ayaa waxa uu sheegay in go'aamadii ugu dambeeyay ee dhawaan soo baxay ay yihiin kuwa ka dhashay mushkilado ku hoos duugan siyaasadda Soomaaliya ayna ugu weyn tahay awoodda iyo sida loo kala qaybsanayo oo aan kala saarnayn iyadoo dastuurka dalkana uusan si waafiya u qeexin ayuu yiri. Federaalka oo ah mid waqtiganba ku cusub dalka iyo iyadoo ay ugu daran tahay sida uu yiri xiriirka dawladda dhexe iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada xubnaha ka ah oo aan wanaagsanayn. To answer your question directly, I think it is unfortunate. I hope it will quickly result in a course correction whereby the federal member states will agree to meet with the president. Haddii aan su'aashaada si toos uga jawaabo, waxaan filayaa inay tahay nasiib darro. Waxaan rajaynayaa in si degdeg ah ay u sameeyaan sixitaan qoto dheer oo ay maamulada xubnaha ka ah dawladda ay ku raacaan inay madaxweynaha ay kala qayb galaan shirka golaha amniga qaranka ee madaxweynuhu ku marti qaaday. Haddii xataa ay taasi adkaato, ujeeddada ugu weyn waxa weeye in hogaamiyaasha dalku ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan waxyaabaha walaaca leh sida amniga, hannaanka doorashada, dastuurka iyo khayraadka iyo weliba dakhliga gudaha. Xaqiiqdii waa nasiib darro inay jirto is-aaminaad la'aan u dhaxaysa dawladda iyo maamulada xubnaha ka ah. Mr. Keating ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu sii xumaanayo iyada oo lagu sii dhowaanayo doorashada qaar ka mid ah xubnaha maamul goboleedyada oo dhacaysa dhowaan, wuxuuna ka dhawaajiyay in uu booqday magaalada Kismaayo shirki ka socda si uu wadar ugu macsalaameeyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ee shanta ay ku shiraya halkaasi. Mar wax laga weydiiyay isfaham la'aanta dhinacyadaasi dawladda iyo maamul goboleedyada iyo xalka uu u marayo ayaa waxa uu yiri It's time for Somali leaders to take full responsibility for the stability of the country and not expect outsiders. Waxay ila tahay in la joogo xilligii hogaamiyaasha Soomaalidu qaadan lahaayeen mas'uuliyadda deganaanshaha waddankooda oo aysan ka sugin bannaanka dadka jooga inay u sameeyaan. Dhinaca kale waxaan anigu u aaday magaalada Kismaayo si aan qayb ahaan u soo macasalaameeyo shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada. Waxayna ahayd fariinta aan u waday haddii aad qabtaan tabasho ku saabsan amniga ama hannaanka doorashada, fadlan si furan uga hadla oo la imaada soo jeedin ku saabsan sida loo waajahayo, lana wadaaga talooyinkaasi dawladda federaalka ah, kana tala bixiya fursado wax looga qaban karo. Waa muhiim in la yeesho wada xaajood miro dhal ah. Ka sokow arrinkaasi oo uu ku sheegay xalka dhow ee loo baahan yahay in uu yahay, waxaa sidoo kaleeto ergeyga arrimaha Soomaaliya uu sheegay in xalka fog ay tahay in Soomaaliya laga qabto musuqmaasuq ba'an oo dhaqaale lagu kala qaadanayo doorashada iyo sidoo kaleeto ridida codadka loo adeegsanayo mas'uuliyiinta mararka qaarkood Soomaaliya gudaheeda. Michael Keating waxa uu nasiib darro ku tilmaamay inay jirto gacmo badan oo lacago isku dhaafsanaya Soomaaliya si awood loogu guulaysto amaba codka kalsoonida loogu qaado koox. Waxa kaleeto arrinkaasi uu sheegay inuu yahay mid Soomaaliya u diiday horumar loona baahan yahay xal waara in laga gaaro. Unfortunately, too much money changes hands in order to win votes, in order to either support or stop motions of no confidence, of impeachment. Nasiib darro lacaga badan ayaa la isdhaafsadaa si codadka doorashada loogu kala guulaysto iyo in la joojiyo ama la taageero mooshin cid ka dhan ah. Arrintani waa mid culus, waana mid aanan u ogolaanayn in dalku uu horumaro. Markaa mid ka mid a waxyaabaha aan u soo jeediyo guddoomiyaha baarlamaanka, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ahayd oo aan sidoo kalena ku soo qaaday madaxweynayaasha maamul goboleedyada in loo baahan yahay xeerar iyo mabaadi' cadcad oo laga yeesho siyaasadda iyo mooshinada iyo in dib loo eego shuruucda iyo in sidoo kale la helo sharciyo laga dejiyo lacagta ku dhex wareegaysa siyaasadda.
Keating oo wax laga weydiiyey muddadii xafiiska uu joogay arrimo dhowr ah oo laga rabay hogaamiyaasha Soomaalida inay sameeyaan kuwaas oo ay ka mid tahay dhismaha ciidamada, xoojinta amniga, dhamaystirka dastuurka iyo wax ka qabashada cadaaladda ayaa waxa uu qabsoomay waxa uu yiri. Current government, the Prime Minister, I think, has a very serious agenda. I think the agenda to reform economic and financial systems is a very strong one, and as you know, dowladda haatan jirta ra'iisul wasaaruhu waxa uu wataa ajenda culus oo dib ugu habaynayo hanaanka dhaqaalaha iyo lacagta, waxaana dusha kala socota hay'adda lacagta adduunka ee IMF. waxaana ka yimid isbeddel la taaban karo taasoo ay ku jirtay kororka dakhliga gudaha, canshuuraha iyo waxyaabo kale. hay-adda IMF si hoose ayay ula socotaa, dabagal adagna way ku haysaa barnaamijyada ku saabsan hanaanka maamulka lacagta wejigooda koowaad iyo wejiga labaad. waxayna doonayaan inuu waddanku guul ka gaadho tijaabadan ay ku jiraan. dhinaca kale ee amniga haddii aynu eegno, dhibku kama taagna kartida iyo tayada shakhsi ee qofka booliiska ah, inkastoo ay taasi muhiim tahay. laakiinse muhiimadda aan ka hadlayo waxa weeye in la helo dhismaha hay-ado dowladeed oo qof kasta uu aamini karo. But really, it's about building institutions that everyone trusts. waxaa kaleeto muhiimad laheed uu intaasi ku daray aragtidiisa in haddii ay jirto caqabad taagan ay tahay hirgelinta sharciga dhismo amni qaran oo ah waxay isku raaceen ayuu yiri dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, isla markaasina ay meelmariyeen xubnaha baarlamaanka. sharcigaasi oo ah ayuu yiri mid fiican ayaa haddii la meelmariyo waxa uu noqonayaa mid wax weyn soo kordhinaya. si kastaba ha ahaatee, Michael Keating ayaa xafiiska ka tegaya October kowdeeda kadib muddo 3 sano ah oo ka soo shaqeynaya arrimaha Soomaaliya oo wakiil uga ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. si rasmi ah toddobaadkan waxaa xogayaha guud ee qaramada midoobay ugu magacaabay inuu booskaasi buuxiyo Nicholas Haysom oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika. mahadsan Saare Cabdi Axmed oo inoo soo jeedinaysay warbixintaas ku saabsanayd waraysiga aynu xalay la yeelanay ergeyga xilka ka sii degaya qaramada midoobay Michael Keating.